aan dadka degmada ku sugan waa salaamaya waxaan soo kala soo dhaweynayaa wasiirka amniga maamul goboleedka Jubbaland aniga aan ka tirsanahay oo saaka aan u tagnay degmada Buulaxaw maalmihi la soo dhaafay howlo shaqo u joogay Buulaxaw oo la kulmay odayaasha dhaqanka qaybooda kala duwan ee bulshada saakana degmadaas aan u tagnay anagoo maamulkii degmada iyo ciidamada amniga oo saaxiibana intaba halkaas aan ka soo kaxayno kan degmada Dolow oo marka hore targetkiisu ahaa inuu imaado soo socda ku mari doona Galbaari iyo Bareere iyo Luuqba intaba Buulaxaw Donald si gaar ah u qosayso wasiirka meesha ka soo jeeday wasiir soo dhawaan ku leenahay waxaan u maleynayaa kulli insha Allah taala hadii la maalmaha la joogto shaqooyin wanaagsan baan wada qaban doonaa imaanshayahagana gobolka maartay qiimo fara badan buu nagu fadhiyaa wasiir kaliya ma lahayn oday Soomaaliyeed taliye xoog ciidanka dalka Soomaaliyeed oo samartay haday heer federal booliis tahay haday ciidanka xoog dalka ay tahay intaba oo wax aad u weyn wax laga sheekeyn karo maaha anagana xilliyadas kala duwan taariikhdaas intaas lagu inta soo wada qabanisay kulli dad yarar ma ahayn oo marxaladaas aan ku dhex korino dhex taagnayn marka taas ayada waxaan u maleynayaa dadka reer Gedo iyo dadka reer Daawo inta maartay macna gaar ah inay u leedahay state kana macna gaar ah u leedahay anaga ka tirsanahay ee Jubbaland intaas waxa dheer waxyaalo fara badan oo siyaasadeed ya iska jira oo wadanka jiro gaar ahaan maartay state-kii federaalka dawladda dhexe way iska dhamaanayaan waxaas maalin kasta oo dhacan khilaafaad badac way iska dhamaadaan tii dawladda ka soo reebay sidoo kale maalin kasta khilaafaadku iska taagan laakiin waxa la isku yahay iyo ehelnimada iyo wada dhalashada ummadda Soomaaliyeed wax dhamaanaya ma taariikh baan u qormayso waxa kale jiro mar haday saas xaaladu tahay aad in loo fiirsaa fiican dadka Soomaaliyeed oo wax garanayo waxyaalaha noocaas ah tii wadanka dawladda buu leeyahay dawladda wuxuu leeyahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo golo fulin iyo oo matana laba heer u leeyahay oo baarlamaanka iyo wasiirada golaha wasiirada ah istiidadana soo kale mar haday shaqo socotana la isqaban oo hadda ama Puntland ha noqoto ama Jubbaland ha noqoto mar dhex koonfur galbeed ha noqoto laakiin bulshada Soomaaliyeed waxay caan ku tahay mararkaas wixii jiro inay iskaga imaadaan ay mataqaana wax wanaag ka gaaraan baa jiro tusaale haddaan soo qaato sanad ka hor muddo hal sano laga joogo meesha nidaamka state-ka ay imaaday Buulaxaw la maray Galbaari la tagay Bareere Luuq aniga qofka ugu dambeeyo degmada jooga maanta waxaan nasiib yeeshay oo taariikhda ay barisaa dadka Soomaalida dhaqankooda qaabka yihiin in maartay maalinkaas meesha la joogo qofka inuu ka qadayo inuu rabo oo sharafkiisa karamayso oo siisto shilimaad iyo wax aan suurtagal noqonin Ilaahay waa arsaaqada bilaadanka gacanta ku hayo qofka bilaadanka ana sumcadiisa karamayso lama dilo annaga haddaan reegidan ahay nidaamkan state-ka Jubbaland baan ka tirsanahay xaq baan u leenahay xataa inaan madaxweyne ka noqono man ilmaadaro isla dhashay oo hal meel wada joogo in qolana Allah madaxweyne kuwa kale madaxweyne weeyl loo macnaheedu waxay noqonaysaa in anaga xataa laaji aan ka nahay taasna tu suurtagal noqonayso maaha nidaam buu leeyahay state-ka hadda madaxweyne joogo madaxweynahaas doo ka baxay haddana ummadda Soomaaliyeed oo state-kan ka soo jeedo qof kasta oo state ka soo jeeda xaq buu leeyahay meeshaas in madaxweyne ka noqdo laakiin hadda waxa u maleysaa qaabka Soomaaliyeed ay wax u dhigayaan in qaabka xataa wax wada lahaanshiyaha inay ka duwanto dad fara badan oo waxba garanayn maartay inay meelo fara badan oo munaasabeen iska xirjeen ma jirto madaxweynaha si sharci ah lagu doortay state-ka xilwaanadii dadka deegaanka dhaqanka doortay haddii la isqabtay haddana dawladdii ayada wadanka hooyo abo ah ayada la rabo wixii khaldameen saxan bal rabo cid ayada mucaarayso cid la dirayso cid la dagaalamayso haweertay ma jirto dadka Soomaaliyeed marka dad waxa iska jir marka waxaas inta badan aad in loo dhaxordo iska jecel qofka bilaadankan in la duleeyo ma qurux badno oo sharafkiisa iyo karaamadiisa iyo cizigiisa lagu ciyaaro ma qurux badno sababtoo maalmo kooban adduunka joogna maalmahaas kooban adduunkan joogno qof bilaadan oo Ilaahay uu karaameeyay adiga maalin badinac dad oo isla shalakii aniga ii imaaday oo baabuurta iyo jini jaanka watay oo meesha aniga ugu imaaday oo yiri waa inaad raacad Axmedowe oo la shaqeyso qasabay haddana maanta dhinacan kale u leexo xogaa waxa u maleysaa حتى شريعة الإسلام أما الدينية دين الإسلام مركي إلهي ومتقنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ملائك با إلهي من كسر ذيك السر إن الله لو وقوف متقنا قوم كان بالعدم كأ ملائك تسولوا إلهي وأنا وكوا ذيك نبارير كوا إن كوا عاسي قال إني أعلم ما لا وحين إذن كوجين يعني أوجه إلهي آيات كسر جوجي سورة البقرة تاسنا معناه تهاي بدل كفراد بدن وقفك بالعدم كامل أن لوجمان لكن قفك إسلام كائن ميل لوجي ماذا قروح بدن وشرف بدن وحكى له جرو dad fara badan oo qof waxa la sheegay koole waxaan weerarnaa Ethiopia weerarnaa waa dagaalamayna 7 jiraan nahay ilaahay kitaabkiisa marayna anaga wax dhinto ugu horeyno waxa u maleynayaa waa aniga wax badan baan kulli shakhsiyan nin ehlan ahay sanada ka hor kool madaraan nahay waa meeshan ka soo gudbay kool la qabtay aan idaacada kaga hadlay dadka ehelka oo walaalaha wada nool inay walaalnimo iyo ixtiraam ku wadaan fiicanta laakiin waxaan arkay kuwo meeno ku taagan oo boqol jermiina sayid aniga la soo aaday oo iskaga xishoola la ehl baa leeyahay u kaadi saddexdii bari afartii bari oo soo dhaafay saas oo kale inta badan waxa laga yaabaa guriga inaan iskaga mashquulsan laga yaabaa xaaladaha jiraan qiimeynay iyo qofka qaabka u socdo haddaad fidna u socoto qofka walaalka inaad qaanto ma fiicna fidna u socda dagaal baa u socda mowqifkaasaan ku soconaa waxaasan soo qadan qaabkaasaan ku soconaa laakiin qofka inaad rajigelisood meel la fariisto waxaan jira u sheegto dad wax bartay oo 20 sano in ka badan buugaag qalimaan watay waxaad ka shaqeynaysaa wax ka badan bay ka shaqeynayaan dawladda fara badan xadidan ku nool baajiro miinooyinkaas lagu taagan yahay in badan baan aniga dadka leexinay oo lahaa maartay ehel baa leeyahay walaal leeyahay yaan lagu dakano weyn iyo lagu eedoowin yaan lahaa in badan laakiin meeshii hadda aan ka leexinay aniga oo lahaa dadkan waa ehel waa wada dhasheen inta adiga aad wax asturi karto inta adiga korka aad wax saaran karto wax saaro in miinooyin laga soo qaaday marka wadamo kale oo shisheeyay la soo qaado oo حدود لكيرو وهذانا لو شقي أرنت أيده هيد كل فائدة كوا دارنا أركضون هدولار هذا إن شاء الله تعالى هدولار هذا قف عرو كورني أما قف أدانوه مجر قف البدني شيء مستقبل كيس يوحي يساقرني أنا استيت كاسان كتر سنة جبلا موقف لنا مبدأ ولا نهاي ما هو البقولة دي مدينة إمارتي أو وضن كوسر هذا ما أما قولة كوكر إمادان أو مال أوصل مال كسان جرين حق ولا أنت ولا حق ولا حتى دتك مسبكوده iyo masiirkooda lagu ciyaaro waxay noqonaysaa martii waxaan xataa diinta islaamka aan ma taqaana meel aan u weelin bay noqonaysaa dagaal sokay meel walba ka socdo luuq waxa ka socdo ilaahay ma iska daba qowday xaraale meel walba aragteen argixisada meel walba taagan niman odayaal oo carruurhooda xaafadan ay dhex degan yihiin oo hadda 5 talaab 6 talaab ama 150 talaab oo badnaan yaa codad laga dooyo ay kale dhaaranayo 7 jiraan nahay وورنا إثيوبيا الحدود أصلا ورنا نودقلي ما هنيسو أرين في عنوي قف كمل ور أصاصعد أرين في عنوي بينو ينكاس مرر بدن أو بدن ما أني شخصيا يعني وحنا عندك أهل كأن نقول له حيو وحدودها الجيش كفر كرب أسكوهي ديارة مصاري إليهم بالمغلى يخاس كمبوني مركو روحي جاي أي كهان أنت دم داريد الشعب كودين وصوت منطقة ديارة وحريين لكن وحنا بلن قاضي هدو إلى هذا نظام كاسان كتر سنة كنا دمانينا إسلام بان هاي الدين إسلام بان لنا هاي مالنا حاجة منه ما سوى كرنا قف عرو كورناي وائر وكسر علنا هذانا أو أهلوه من المجرب وحان أركايا أهل المدي ولا المدي يحلقوا الشقين هاي قف قدوم العسكري إن دني سجار كاي لون توح مري كلية أما درجة أما حل سجور هذين هاي إنه قفل بأسي سنة تاس مرك قفل بمشي أمر كرو أمر هدول لها سوق شرف كيسي كرامدي سوق دفاع لها استيت كاسمة دفاع عنها هدول لها قفنا كلامات تشان قفل المويدينه إن مصير ومدد إكالان أو أيك هوين مال التلفون ضد وجيران أو ضد هلا الله إليهن وحاول وأرمها مصيبة يمكن أرني كمت هدي أوجو ضد كاس مصالح قول كان أو طريقة ما لها ويراته تصوم على سكرة تقوي سيسك كرشان حتى ماله إن ضد الوقت القاليو ضد وين وضيال إن الله أنت لسماء قرب لقالو دجان إنه تقولي حسين إلا قاد لقانا يا ودتك وحكوه سنة أيكيين أو واحد كان لنوي marka waxa weey waxa noocaas oo kala ah talooyinkooda horaan u arag doorkan ku galnay waa ku jabhadeynay waan soo aragnay waxay yihiin dadka talada ka qaadanayay waa maantayto ya tooda ya kulay wixii jiro saxda ka sheegay annaga shalay nagula qalqaalinay oo nagula handaday la shaqeeyay Axmed iyo Jubbaland State tan qofka maanta haduu ku imaad isla isaga oo isgadin oo ku dhinac kale u shaqeey xogaa diinta islaamka xataa inay samee looga jirin baan u maleynaya sababtoo ah
ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا من مرنا حق أسعت مرنا حق أسعت أنا إنسان قروح بدن لكن إن شاء الله تعالى وحن كل صناعي نيدي ده تلد إلهي وحن كل صناعي واحد بدن أو مرر بدن أن كله حنا أن الروحان مينوين كان أنت كنت تاجين حلاقة لحظة واحد حلين كرتان حاليا وحلس موين قفل بوح وكهلوا لي وح وكشغانة سيجع ما هو قال هدي تاسبنا إلهي وي مشين لحية تونسنا كهر واردين تنا ذات كنا يكون أنت مرة هذا أنا كل منه وقف كدو كوي ما دولا إن هي أهل بان هي كتاب يدار ومر وحبا أنا كجرين كلية أي تايون وكون عتيس إن من المر نقط يا جنديس يو واحد سوى ساقاته وبناك سوكلاء ماذا وراه إنه فليو وهذانا أدي إنه بيو كومرس ولا إنه هو وحوي والله وحوي بالله وح كجرين إسنجرين وماشي أصعد هدو أصعد حتى سسح وكوشة وكذا ورماشي أصعد عليه مسكون راعي كرنا مسكون راعي كرنا تلاقي تحت إن هذانا أيضا منافقات للإحتياجين لسلوك كل حركه وطلقوا في البوك جوانا مرة لو هدي أنت سنقول عدنا الشخصين هدي يقول عد مصيبوي أنت سنتاصل العين قف كستو مينا كتاجن مينا ده لسه قرحنا الدولار هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.